xilligan orday waa haweene yah xilligan ma orod ku jirtay waa haweene kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV oo alaaba aan kaga hadalna arrimaha fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed balse daawadayaal maanta waxaan idin soo bandhigaynaa sir culus oo ku saabsan fanaanka loo yaqaan Qamar Suugaani. Sirtani waa gabadh Soomaaliyeed oo habeen saq dhaxa ah oo waqtigu yahay habeenka oo bartagay soo bandhigtay una sheegatay jacaylka ay u qabto fanaanka reer Hargeysa ee loo yaqaan Qamar Suugaani. laakiin daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato kanaalkan qalbi Soomaali TV fadlan nagu soo biir oo taaba calaamadda subscribe-ka kadibna gambaleelka furo oo riix ku soo dhawaada barnaamijka. ugu horeyn daawadayaal fanaanka Qamar Suugaani waa fanaan soo shaabaxay sanooyinkii ugu dambeeyay waxayna heesihiisu noqdeen kuwa ugu dhageysiga badan ee dadku ku celcelshadaan dhageysigooda. sidoo kale fanaankani waxa uu noqday fanaan aad loo jecel yahay oo noqday superstar waxa loo yaqaano wuxuuna fanaankani leeyahay mustaqbal aad u wanaagsan dhanka fankiisa laakiin dhibaato weyn waxay ka haysataa dhinaca dumarka waayo maadaama shaqadiisu tahay inuu dadka madadaaliyo oo uu yahay heesaa ku luuqeeya heesaha jacaylka ee aadka u macaan kuwaasoo dhallinyaraduna aad u jecel yihiin ayaa dhinaca kalena waxaa jira gabdho aad ugu sahraama codkiisa hibada alla u siiyey. haddaba fanaankan waxaa inta badan dhacda in aad maqasho fanaankan gabadh ayaa haysata oo leh waan jeclahay. haddaba daawadayaal sirta culus ee aan idiin hayno inta aynan hore u gudagelin waa inaan isla ogaano oo isla fahanaa in fanaankan Qamar Suugaani loo yaqaano waqti xaadirkan uu u bisil yahay isla markaana uu yahay qof raba inuu lahaado hal xaas oo uu nolosha la wadaago. run ahaantiina waqti xaadirkan waa fanaan aad isu ilaaliya kana fogaada inuu noqdo shalmad raac. dhinaca kalena fanaanka wuxuu markasta aad ugu soo celceliyaa jacaylka uu ku sakhraansan yahay ee xaaskiisa Nasiin uu qabo. sidaa darteed Qamar Suugaani warkiisa wuu cad yahay laakiin khaladka ugu weyn waxa uu ka imanayaa dadka taageerayaashiisa gaar ahaan gabdhaha qaarkood oo jacayl weyn u qaada fanaankan balse isagu wuu ka gaabsadaa arrimaha noocaas oo kale ah. sida aad muuqaalkan ku arki doontaan waa gabadh Soomaaliyeed oo aad ugu faraxsan hadalka uu la hadlayo oo kaliya fanaankan loo yaqaan Qamar Suugaani. bal daawo muuqaalkan haddaba. dhinaca kalena daawadayaal waxaynu ognahay in fanaankan loo yaqaan Qamar Suugaani uu yahay laacib soo jabay dhinaca jacaylka waayo hore waxa uu burbura xiriirkii jacayl ee isaga iyo ka dhaxeeyay fanaanada loo yaqaan Ugbaad Aragsan oo xaaskiisa ahayd. sidaas oo ay tahay arintuna Qamar Suugaani mar kale waxa uu dhisay jacayl sonkor laga daayay oo malab lagu daray waana midka uu waqti xaadirkan u hayo xaaskiisa loo yaqaan Nasiim Sooraan. balse dhinaca kalena daawade bal u fiirso muuqaalkan waliba si fiican u dhuux waxaad arki doontaa sida Qamar Suugaani uu aad iskaga ilaalinayo taageerayaashiisa ama gabdhaha taageerayaashiisa ee jacaylka weyn u qaada ee jecel. sidaas oo ay tahayna Qamar Suugaani waxa uu muuqaalkan sameey doonaa inuu marka ay gabadhu la hadasho kuba jaro khadka taleefanka isla markaana uu hawada ka saaro taasoo run ahaantii la oran karo Qamar Suugaani waxa uu sameynayaa arrin aad u weyn oo uu ku ilaalinayo jacaylkiisa. haddaba daawasho wacan muuqaalka. yah xilligan ma orod ku jirtay waa haweene hadda waxa la farka laga dhamay xagaag iyo xusuus geel lagu xirgiyaa Soomaa waqtiyadii isbaartigan dib u xusay
yaa aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalo. allah ku sharfaan ku leeyahay. aad ugu faraxsanahay. asxaabay waan idin wada salaamayaa dhammaantiin. goorahanba neeftan isku celinayo odaygu uu daalibay sanan baan isla moogta markaan ka baxaa neef qaadasho markaan lifeka ka baxo soo dhow Karoonaysaa tahay. aad baan wanaagsan. aad ugu faraxsanahay caawa kula hadlo. aad baa ku taageeraa. kaliya laa walaalo soo dhow. xilligan ordaysa haweene. yaa xilligan ma orod ku jirtay waa haweene. haddii waxaa la yidhi xoorka laga dhamay xagaag iyo xusuus baa geela lagu xirgayaa soo maha waqtiyadii isboortigaan dib u xusay. Sidoo kale iska wacan tahay. yaa aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalo. allah ku sharfaan ku leeyahay. sidoo kale aad ugu faraxsanahay. asxaabay waan idin wada salaamayaa dhammaantiin. goorahanba neeftan isku celinayo odaygu uu daalibay sanan baan isla moogta markaan ka baxaa neef qaadasho markaan lifeka ka baxo soo dhow Karoonaysaa tahay. aad baan wanaagsan. aad ugu faraxsanahay caawa kula hadlo. aad baa ku taageeraa. kaliya laa walaalo soo dhow. xilligan ordaysa haweene. yaa xilligan ma orod ku jirtay waa haweene. haddii waxaa la yidhi xoorka laga dhamay xagaag iyo xusuus baa geela lagu xirgayaa soo maha waqtiyadii isboortigaan dib u xusay. sidoo kale iska wacan tahay. yaa aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalo. allah ku sharfaan ku leeyahay. sidoo kale aad ugu faraxsanahay. asxaabay waan idin wada salaamayaa dhammaantiin. goorahanba neeftan isku celinayo odaygu uu daalibay sanan baan isla moogta markaan ka baxaa neef qaadasho markaan lifeka ka baxo soo dhow Karoonaysaa tahay. aad baan wanaagsan. aad ugu faraxsanahay caawa kula hadlo. aad baa ku taageeraa. kaliya laa walaalo soo dhow. xilligan ordaysa haweene. yaa xilligan ma orod ku jirtay waa haweene. haddii waxaa la yidhi xoorka laga dhamay xagaag iyo xusuus baa geela lagu xirgayaa soo maha waqtiyadii isboortigaan dib u xusay. sidoo kale iska wacan tahay. yaa aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalo. allah ku sharfaan ku leeyahay. sidoo kale aad ugu faraxsanahay. asxaabay waan idin wada salaamayaa dhammaantiin.
goorahan ba neeftan isku celinayo odaygu uu daalibay sanan baan isla moogtay markaan ka baxaa neef qaadasho markaan leefka ka baxo soo dhow corona seeta aad baan wanaagsan aad u farxanahay caawa kula hadlo aad baa ku taageeraa kaliya laabulaan soo dhow xilligan ordaysa haweene yaa xilligan ma orod ku jirtay waa haweene haddii waxaa layidhi xoorka laga dhamay xagaag iyo xusuus baa geela lagu xirgayaa soo maha waqtiyadii isboortigaan dib u xusay sidoo kale iska wacan tahay yaa aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalo allah ku sharfaan ku leeyahay sidoo kale waa aad ugu faraxsanahay asxaabi waan idin wada salaamayaa dhammaantiin goorahan ba neeftan isku celinayo odaygu uu daalibay sanan baan isla moogtay markaan ka baxaa neef qaadasho markaan leefka ka